بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما doonaysaa inaad isbeddel dhaqaale samaysid. haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo doonaya inuu ku sameeyo nafsadiisa isbeddel la taaban karo, waxaan kula wadaagayaa 6 xirfadood oo haddii aad 2 ama 3 ka barato noloshaada sare u qaadaya dhan waliba, khaasatan dhanka dhaqaalaha. laakiin si aad isbeddel u samaysid, marka hore waa inaad aamintaa nafsadaada, iskana ilaalisaa qof waliba gadaal ku dhigaya. midda kale waa inaad xooga saartaa barashada xirfado cusub, maxaa yeelay qofba inta uu ka xirfad badan yahay qofka kale ayuu ka fursad badan yahay. sidaa darteed waxaan kula wadaagayaa 6 xirfadood muhiim ah oo aad ku anfacaya maanta iyo mustaqbalkaba. xirfadda koowaad waa video editing. waa xirfad aad muhiim u ah dadka inta badanna aad ay ugu baahan yihiin, sida ganacsatada, youtuberada, waxayna mar waliba baadi goobaan rag ka saacida dhankaas iyo video editingka, waxayna u ogol yihiin lacago fara badan inay ku bixiyaan. video editingka ma ahan xirfad barashadeedu ay aad u culus tahay, waxaadna ka baran kartaa youtube-ka iyo goobo kale adigoo qaadanaya koorsooyin free ah. xirfaddan haddaad barato halkii video waxaad ku samayn kartaa 20 ilaa 25 iyo in ka badan. xirfadda labaad waa web development. waa xirfad aad lacag ka samayn karto, barashadeeduna fududahay. xilliyadii hore in website la sameeyo aad ayay u adkaan jirtay, waqti iyo dadaal badan ayay u baahnaan jirtay, laakiin maanta aad ayay u sahlan tahay. taasina waxaa fududeeyey platformska sida Canva iyo WordPress. xirfadda saddexaad digital marketing. waa xirfad muhiim ah, fursadeeduna aad u sareyso. haddii xilliyadii hore xayeysiintu lagu samayn jiray idaacadaha, tviyada iyo wargeysyada, maanta meesha ugu badan ee wax lagu xayeysiiyo waa baraha bulshada. sidaa darteeda ganacsade walba wuxuu maanta u baahan yahay shakhsi ganacsigiisa online-ka ugu xayeysiiya. xirfadda afraad blogging. waa xirfadda ugu sahlan ee maanta la baran karo, kadibna lacag laga samayn karo. blogging waa inaad samaysataa website adiga kuu gaar ah, kadibna aad ku soo gudbisaa qormooyin adiga kuu gaar ah. marka aad buuxiso shuruudaha laga rabo, waxaad codsanaysaa Google AdSense. waxay ku furayaan xayeysiin aad lacag ka samayn kartid. sidoo kale qof waliba website-kaaga soo booqda waxaad ku helaysaa lacag. xirfadda shanaad graphic design. waa xirfad aad u qaali ah, waxaadna ugu shaqaysan kartaa qaab freelancer ah. waxaad kaloo ugu shaqaysan kartaa inaad contract la geshid dad u baahan naqshadeen in loo sameeyo. sida aad ugu shaqaysatid xirfaddan, waxaad adeegsan kartaa Canva oo ah website aad u fududeeyey shaqada design-ka. runtii Canva waa game changer. qof waliba naqshadeenta u baahan aad ay u anfacaysaa. xirfadda lixaad YouTube channel. sida aan wada ognahay, YouTube-ka shakhsi walba ayaa lacag ka samayn kara, keliya waxaa muhiim ah shuruudaha lacagaha lagu qaato inaad ka soo baxdo, taasoo ah 1,000 subscribers iyo 4,000 oo saacadood in la daawado YouTube-kaada. ugu dambeyn waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad 2 ama 3 xirfadood ka barataan 6 xirfadood aan sare ku soo xusnay, si aad shakhsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba heer sare u gaartaan. arrinta ugu muhiimsan waa go'aan qaadasho iyo in ay kaa go'an tahay oo keliya. iska ilaali isku dhexyaaca iyo qorshe la'aanta, markastana alla subxaanahu wa tacaala ku xirnow. waxaan idin rajaynayaa guul adduun iyo mid aakhiraba.